soo dhawaada saaxiibayaal filimku wuxuu ku bilaabanayaa iyadoo noloshiisa wiil u socda dugsiga magaciisu waa Tom. Markuu dugsiga gaaro wuxuu arkaa gabadhaas waxay ku leedahay waxaan maqlay in waxbarashada ku fiican tahay miyay caawin kartaa. Fiidkii markuu tago gabadha gurigeeda wuxuu arkaa walaalkeeda dhulka jiifa wuxuu ahaa mid miir beelsan. Tom aad buu ugu walwalaa wuxuu tagaa qolka saaxiibtiisa si uu weydiiyo wax dhacay. Wuxuu arkaa nin ka soo baxa qolka, ninkaas wuxuu wax ku duubaya mobilkiisa isla markaas nin kale ayaa soo baxa, labadoodu waji xir bay wateen. Markii Tom markan waxay bilaabay inay rasaas ku furaan, laakiin Tom si degdeg ugu baxsadaa wuxuu orday si uu booliisku waco. Si kastaba tuuti ay markale weerarka ku soo qaadaa weli lama tusin cid ay yihiin, laakiin weerarkaas dartiis Tom si xun u dhaawacma wuuna suuxa waxaana loola carraa isbitaalka. Markuu indhaha fur aydiis ayaa ag fadhiida, dhakhtarku wuxuu leeyahay wax walba waxay hagaagsan yihiin laakiin waxaa jira dhib. Markii la toogto mobilkaada wuxuu ka ag dhawaa dhagtaada. Xabadii markii ay mobilka dhex martay qaybo yar oo mobilkaada ay maskaxdaada galay ma awoodna ka soo saarna qaybaas, waan ku xubna inaan ku sheegin waxba laga qaban karin. Markaas Tom ayuu guriga la aaday aydiisa wuxuu arkay raadiyaha gaariga lambaradiisa in la yaab ku yihiin. Wuxuu arkay hiriraysa taasoo indhihiisa hortooda ah. Markuu guriga tago sidaas oo kale ayaa dhacda, wuxuu la yaabaa wax dhacay wuu seexday isagoo jabsan. Subaxdii dambe markuu soo tooso aydiisa ayaa u sheegtay in gabadhii saaxiibtiisa ahayd maalintaas la qasbay. Waxaan u maleynayaa inaad tagto xaaladeeda ka wareysho, magaceedana waa Lassie. Markuu Tom tago guriga Lassie wuxuu arkaa walaalkeedoo fadhiya way wada hadlaan. Markaas Tom wuxuu arkay in si fudud u arki karo calaamadaha wifi ee guriga. Markaas kadib wuxuu la kulmaa Lassie way wada hadlaan kadibna gurigiisa ayuu aadaa. Markuu daaqada qolkooda fiiriyo wuxuu mar kale arkaa calaamadahaas wuxuuna ku dhacaa dhulka. Waa saameynta qaybaha mobilka ee maskaxdiisa galay. Markaas wuxuu arkaa aragti ku saabsan wiil dugsi ku ah oo loo yaqaan wiil xun. Wiilkaas wuxuu mid dhib badan wuxuuna dhibaa dadka. Tom wuxuu u fahmay in maalintii la soo weeraray Lassie walaalkeedii meesha joogay. Tom wuxuu arrinta u sheegay saaxiibkiisa, laakiin saaxiibkiis wuxuu leeyahay waxaa si qaldan u fahantay, arrinta maaha mid suurtagal ah. Markaas waxay fuulaan baska dugsiga, ardaydu oo dhan waxay isticmaalayaan mobiladooda. Tom wuxuu arkaa iftiinka calaamadaha waxa maskaxdiisa la baxay fikir badan. Markaas saaxiibkiisa ayaa weydiiya fiidkii waxaa jira xaflad imaanaysa. Tom wuxuu leeyahay ma hubo. Wuxuu gaaraa dugsiga fasalka ardaydu dhan mobiladooda ay ku mashquulsan yihiin. Tom wuxuu diiradda saaraa mobilka wiilka xun wuxuu u fiirinaya wuxuu sameeynayo. Wuxuu ka shaqsiin wiilkaas inuu qaybkii dhibkii Lassie gaaray. Kadibna wiilka xun wuxuu helaa muuqaal. Tom wuxuu isticmaalay awoodiisa uu ogaado in muuqaalkii kii dhacday Lassie. Tom wuu carooday markuu arkay wuxuuna bilaabay inuu orsado raysidii taasoo keentay in mobilka wiilkaas ku laado. Tom wuu ka farxaa wuxuu ogaaday in mobilka jibin karo isagoo adeegsan rayskiisa. wuxuu isku dayay inuu xoogaa raysi aroosado. Fiidkii Tom wuxuu tagaa xafladii saaxiibkiis u sheegay wuxuu arkay in halkaas ay joogaan saaxiibada wiilka xumaa kabaha ay wateen wuxuu ogeyn kuwa nimankii weerar Lassie gurigeeda. arrintan waxay xaqiiqsay in fikirka Tom uu sax ahaa. Tom wuu ka xanaaqay wiilka xumaa wuxuu si degdeg ugu dhintaa, laakiin wiilkaas si xun ma jecel sidaas loo eego. isla markiiba wuxuu u yimaadaa Tom isigoo leh dhibkaaga muxuu yahay. waxay ku sigtay inay dagaalaan balse saaxiibkii Tom ayaa yimid oo kala qabtay. Markaas Tom wuxuu ku noqday guriga wuxuu mar kale kulmaa arrintii hore ee calaamadaha. wuxuu arkaa calaamada iyo xisaabaha lambarada. wuxuu arkaa waxyaabo aad u yar oo aysan dadka indhaha caadiga aysan arki karin. wuxuu bilaabaa inuu bartaaskin isigoo adeegsanaya awoodiisa. kadib wuxuu qoraal u diraa wiilkii xumaa. qoraalku wuxuu oranayaa waan kula socdaa, laakiin magaciisa dhabta ma sheegin. wuxuu isla qoraalkaas u diraa dhammaan asxaabtiisa. kadibna wuxuu u tagaa guriga Lassie wuxuu ku leeyahay aan baxan si aan nafta u dejino, laakiin Lassie waxay ku leedahay ma imaan karo iskuulka hadda. Tom wuxuu isku dayay inuu fahamsiiyo haddii aadan imaan iskuulka sidee wax ku baran kartaa. waxaan wada qaadanaynaa imtixaanka waa inaan u diyaar garownaa. adiga waxa aad tahay qof xoog badan. markii isla hadlaan oo baxaan waxay la kulmaan wiilkii xumaa. wiilkii xun iyo kooxdiisa hortooda istaagan waxay leeyihiin Lassie waxaan ka dareemayaa murugo, waxaan uga doonay ciddii waxaas kugu sameysay. laakiin Tom wuxuu ogay inay yihiin dambiilasha. markaas ayuu carooday wuxuu yiri iskaga taga meesha. markaas wiilkii xumaa ayaa siin xanaaqay wuxuu bilaabay inuu Tom la dagaalamo. Tom wuxuu ka xayay Lassie oo geeya gurigeeda. markuu ka soo noqdo wuxuu arkay wiilkii xumaa kooxdiisa oo isku dayay inay xadaan gaari. waxay jibiyeen qofilka oo waxay galaan gudaha gaariga, laakiin markii ay fariisteen Tom wuxuu ku xiraa gaariga isoo adeegsanaya awoodiisa. kooxdii waxay isku dayay inay baxaan laakiin ma awoodaan. Tom aad buu u helay aragtidaas kadibna wuxuu kordhiyay kuleelka gaariga isigoo adeegsanaya timirtiisa. taasina waxay keentay in gaariga uu shil galo oo kuleel ugu xirmaan gudaha. kadibna waxay maqlaan codka Tom oo ka yeeray raadiyaha gaariga. marka idinku waxaa tiin kuwa Lassie u kafeeyay way baqaan waxay oogin qofka awood leh inuusan ka tagi doonin. waxay qirtaan ha anaga ayaa sameeynay. Tom wuxuu leeyahay ii sheeg qofka idin dhiibay qoryaha oo idin diray inay sidaas sameysaan. waxay yiraahdeen waa ganacsado darooge. Tom wuxuu isku dayay wuxuuna ku noqday gurigiisa si uu ogaado cidda ganacsada daroogadaas uu yahay. maalintii xigtay Tom wuxuu gaaray halkuu degan ganacsadahaas. wuxuu furaa gaarigiisa oo wuxuu bilaabay inuu suuq ugu dhigo. wuxuu duubaa muuqaalkaas kadibna wuxuu ku soo dayaa shaashada gaariga
gaariga ee ganacsadaha isagoo adeegsanaya awoodiisa. Markii ninkii arkay gaarigiisa wasaq ah si caral ayuu dibadda u soo baxaa laakiin cidna ma arkin. Markaas Tom wuxuu ka faa'iidaystaa fursadaas wuxuuna galaa gurigiisa wuxuu u dibiyaa nalalka wuxuuna burburiyaa wax walba. Kadibna wuxuu qaataa bacaha daroogada ee guriga yaalay wuxuu u qaybiyaa bacaas meelo kala duwan oo wuxuu u dhigaa guryaha wiilkii xumaa iyo saaxiibadiisa. Markaas wuxuu la xiriiraa booliska waxay weerareen guryaha waxayna helaan daroogadii. Booliska waxay xiraan dhammaan kuwa ku lug lahaa. Tom wuxuu sidoo kale faaruqiyaa akoonkii bangiga ganacsada daroogada. Ganacsadii ma fahmin wax dhacay wuxuu u wacaa ninkii ka sareeyay u sheegay wax dhacay. Ninkii wuxuu leeyahay haye waxaan ku soo diriyaa daroogo kale fadlan markaan taxadar. Tom wuxuu maqlaa hadalkaas markii daroogadii cusub la keeni lahaa. Tom wuxuu tagaa goobta isagoo wajigiisa qarsaday laakiin ganacsiga daroogada ayaa arkay wuuna garaacaa Tom tamarta korontada iyo rayska taasoo keentay in jirkooda uu xanuun dareemo. Tom wuu dhaawacmay wuxuu suuxay isagoo gurigiisa ku sii socda. Subaxda ayuu miyir yeeshaa wuxuuna gurigiisa ku laabtaa wuxuu arkay in ganacsiga daroogada iyo ninkii ka sareeyay yimaadeen gurigiisa. waxay cabsi geliyeen qoyskiisa. Markaas ninkii madaxa ahaa wuxuu leeyahay waan ogahay inaad leedahay awood badan waxaad xakameyn kartaa hirarka rayska waxaad jabsan kartaa moobil kasta xitaa waxaa faaruqin kartaa akoonada bankiyada. awooddaas waxay u jibisay akoonada dadka lacagtaas waxay ugu soo wareejisay aniga haddii aadan sidaas sameyn waxaan duuban doonaa Lacey waxa kale waad garanaysaa. Tom wuxuu ogaaday in Lacey iyadii la duubay madaxii wuxuu ku adkeeyaa Tom in lacagta dadka loogu wareejiyo akoonkiisa. Tom wuxuu ku qasbay inuu sidaas sameeyo laakiin markaas Tom wuxuu helaa fikrad in haddii uu moobil jabsan karo uu booliska wuxuu sidaas sameeyaa. kadib markay ogaadaan koobta boolisku yimaadaan daba ninkii madaxa wuxuu leeyahay Tom ma ogid yaa kuu sheegay waxaas talyaab kale ayaa ahaa in qofkii qiyaamay uu yahay saaxiibkiis u dhow wuxuu u qiyaamay lacag darteed hadda haddii aadan ii sheegin ama lacagta ii wareejin waad garanaysaa wixii dhici lahaa. madaxii wuxuu wacaa wiilka xumaa si uu Lacey ugu yimaado laakiin uu ku jawaabay wicitaankiisa. markaasii madaxii la tagaa raggiisa iyo Tom koobtaas wuxuu ogaadaa in booliska yimid laakiin kooxdii wiilka xum waxay meel ku qoriyeen Lacey isla markaas bastoolada ayaa ku dhacda dhulka. Lacey ayaa qaadata waxay bastoolada ku fiiqdaa kooxdii waxayna leedahay maad iga xishoon weyseen waxaan idin lahay arday isku fasal tihiin sida walaashiina camal maalintii aad gasheen codkiina ayaa idin kartay laakiin waan aamusay maxaa yeelay waa idinka shakiyay idinka igaraale noqda haddii kale idin caafi maayo way karaale noqdaan. Lacey waxay ka soo baxdaa meesha laakiin markay baxdo waxay aragtaa madaxii ganacsada daroogada horteeda taagan. mar kale ayuu qabtaa Lacey markaas Tom ayaa yimaada madaxii wuxuu leeyahay lacagta si degdeg igu soo wareeji haddii kale Lacey way dhimanaysaa. markaas Tom aad buu carooday wuxuu qarxaa moobilkooda taas darteed way dhaawacmaan moobiladii way gubteen. markaas Tom wuxuu halkaas ka qaato Lacey oo baxeen laakiin madaxii ayaa gadaalka yimid. Tom wuxuu gaasada inuusan markaan islimin wuxuu markale aruursaday rayskii oo ku garaaca intooda badan way ku dhinteen wiilku xumaysigana wuu dhintay. Tom wuu suuxaa laakiin maalintii xigtay markuu tooso wuxuu arkaa idiis isbitaalka la fadhiida maalmo ayaa sii gudbaa xaaladan way degtaa. hadda Tom wuxuu markale u socdaa guriga Lacey wuxuu la kulmaa saaxiibkiisii hore intuu jidka socday kaasoo ka codsanaya cabsi waan ku xumaa ma doonay inaan sidaas sameeyo ma garanayo wixii dhacay maalintaas lacag darteed ayaa sidaas u sameeyay fadlan iyo cafi. Tom wuxuu leeyahay jooji waan ogaa in guriga Lacey maalintaas joogtay waxa duubis wixii dhacay laakiin waxba kuma oran maxaa yeelay waxaan aaminsanay inaad tahay saaxiibkayga dhabta ah fursad kale ayaan ku siinaya si aad u garato qaladkaada adiga saaxiib ima ahaan doontid sidaas darteed ii muuqo mar dambe. kadib markaas Tom wuxuu la kulmaa Lacey waxay wada qaataan waqti farxad leh sheekadu halkaas ayuu ka dhamaanaysaa.